waftigan sharafta leh ee ka yimid Nairobi maanta ka soo duulay ee noogu yimid xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ay hogaaminayaan walaalaha saaxiibada ee madaxweynayaashii hore madaxweyne Cabdikariin iyo madaxweyne Sharaf Xasan Sheekh Aadan xildhibaanada mas'uuliyiinta kala gedisan mudanayaasha marwooyinka soo dhawaada halkan waa gobolkiinni dowlad goboleedka Jubbaland waa dalkii aad dhisteen lahaydeen waxaan u maleynayaa siyaasadda fasax yar baad ka qaadateen bilo kooban waa soo nasateen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad noqotaan waftigii ugu horreeyey oo heerkan ah oo soo gaara magaalada Kismaayo caleemasaarka yimaado taasoo reer Jubbaland qiimo weyn ugu fadhido لذنكون حسوسان دونا دمانتين dalkii waa nabad nimankii aad ugeedeen oo nabadiidka ahaa mooyaane dhibaato kale ma jirto saaxiibo aragtida lagu kala gedisan yahay oo jirana kulli adinka nala dhaqi doona haddii alla idmo annagana si nabad ah iyo doorashada inoogu dhacdo waad la socotaan xafladdii caleemasaarka ahayd ood nagala soo qayb gasheen ood weynayseen allah idinku ciseeyo soo dhawaada diyaaraddii ugu horreysay dowlad goboleedka Jubbaland ummadda reer Jubbaland ay leeyihiin waa idin soo qaad taasoo horumar u ah shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faani karaan madaxweyne Farmaajo aan u maleynay inuu noogu soo hambalyeyn doono kulay wuxuu mudan yahay inuu noogu soo hambalyeeyo waftiga inoo yimid iyo diyaaradda shacabkiisa iyo dowlad goboleedkiisa ay heleenba waxaan ka filayna waa inuu noogu soo hambalyeeyo soo dhawaada wixii waraysi iyo taladii aad noola soo safarteen iyo xafladdii aad nagu soo qiimeyseenba waa geli doonaa safar dheer baa soo gasheen mudanayaal soo dhawaada aad iyo aad baan mar labaad idinkugu mahadcelinaynaa halkan baarlamaan golo wasiiro ururada bulshada reer Jubbaland uma kala harin soo dhaweyntiin taas ayaa idin tusaysa qiimaha ugu fadhida maanta inaad soo booqataan madaxweyne ku-xigeenada xubnaha gudoomiyaha baarlamaanka xubnaha golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka ee Jubbaland iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland dhammaantiin waa idin salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii maanta sharaf weyn ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladda iyo damaashaadka caleemasaarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe aan kala soo qayb galno shacabka reer Jubbaland aan kala soo qayb galno maamulka reer Jubbaland aniga iyo saaxiibkay Sharaf Xasan Sheekh Aadan iyo xildhibaanada kale ee sharafta leh ma aragtay maanta soo gaaray magaalada Kismaayo waxaan runtii aad uga xunnahay in munaasabadda aan ku nimid ay ku soo aadan tahay ama ku soo aaday xilli shacabka reer Jubbaland ay saaran tahay cunaqabateen gardarro ah oo aan runtii qaban ay saaran tahay waxaan runtii aan leenahay shacabka reer Jubbaland ma qabato cunaqabateentaas ma qabato dhibaatada gaarka oo lagu hayo kamana qabato dawladdoodii ee ayaga dhisteen kama qabato taas aad iyo aad baan runtii uga xunnahay waa ku faraxsannahay in aan u nimid ama aan qayb ka nahay dadkii cunaqabateentaas inay jebiyaan hormuudku u ahaa maxaa yeelay waa cunaqabateen gardarro ah waa cunaqabateen dulmi ah oo aysan shacabka iyo dadka reer Jubbaland aysan kasban
shacabka iyo dadka reer Jubbaland waxay mudan yihiin dawladoodana ka mudan yihiin Soomaaliya dhanna ka mudan yihiin in lagu bogaadiyo laguna amaano nabadda iyo wanaagga iyo sharafta ay gaareen haddii waxyaabo kala aragti duwanaanshaha ay jirtana waa in wada hadal iyo wada xaajood lagu xalliyo mana filayo wada hadal iyo wada xaajood inay diidan yihiin dadka reer Jubbaland iyo maamulkooda inay diidan yihiin ma filayo saad ogtihiin dalka Soomaaliyeed waxay soo mareen dhibaatooyin badan wadankaana maraaxil aad u tiro badan ayuu soo maray meesha laga keenay qof kasta uu ogyahay waxa maanta meesha uu joogo lagu keenayna waa wada hadal iyo walaalow iyo wada xaajood iyo isku tanaasul ayaa lagu keenay sida kaliya ee dawladnimadana aan dhisanayna ay ku socon kartana waa isku tanaasulkaas iyo wada hadal waay laakiin ana eri iyo qof kale oo hadli kara ma jiro iyo qof kale oo ra'yi laga dhageysanaya ma jiro waxay la tahay inay tahay arrin aanan dawladnimadana aan hadda dhisanayno aan ku haboonayn inay tahay aad iyo aad u qiyaasaya kullay wixii khudbado rasmi ah iyo hadal rasmi ah oo ama dhinaca siyaasadda ay noocyada kale jiro xilliga calaamasaarka u dib dhiganaynaa waxaan aad iyo aad maamulka Jubbaland iyo shacabka reer Jubbaland uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh ee wanaagsan ee noo soo dhaweeyeen runtii wixii la dhihi lahaa saaxiibkay ay yiri reer Jubbaland runtii sharaf ay sameeyeen doorasho ay sameeyeen doorasho ay ugu daneynayaan dadkooda iyo dalkooda oo ugu daneynayaan wanaagii madaxweyne Axmed uu dalkan ka qabtay ayagoo u abaalgud u sameeyay inuu mar labaad iyo mar saddexaad inuu hogaamiyo runtii ani reer Jubbaland taas waxaan leeyahay waa si geesinimo ah iyo aragti iyo wadaniyad iyo dal jacayl ah runtii taas aan u arkaa hoggaan ay u baahnaayeen waxqabadkiisii ay arkeen daacadnimadiisa arkeen islaamnimadiisa arkeen dhinac walba ay ka arkeen buu ahaa haddii maanta jid lalaala ay mari lahaayeen runtii ayagaa ku dhibtoon lahaa saan aaminsanahay doorasho meel kastoo lagu qabto adduunyada dawladaha ugu dimuqraadiyadsan 50+ la isku doortaa marka waxaan aaminsanahay inkastoo dad wax ka qaba ay jiraan dadka reer Jubbaland wanaagoodii iyo jaceelkoodii iyo aragtidoodii iyo wadankooda sidii wanaagiisa way muujiyeen runtii waa ugu hambalyeynayna waana ugu nimid calaamasaarkan waxaan u rajaynaynaa inuu guul noqdo annagana waa ka soo qayb galnay midda kale runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay reer Jubbaland waa soo halgameen wadankan dhinac walba ay ka soo halgameen haddii xorriyadiisa hore ay tahay haddii dhibaatooyinkii dhacay oo hadda dheeraaday oo waqtiga dheer qaatay ka halgankoodii iyo wanaagoodii iyo Soomaali jaceelkoodii waxay soo reebteen ma lahayn hawadii Soomaaliya ka maqnaan jirtay oo muddada badan ay u qaylinayeen wax xaqeeqan noo soo celiyo ay lahaayeen in ayaga hadda xabad looga dhigo lagula dagaalamo runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay waxaana leenahay ka raalihaada wax idin qabta maaha waxaan rajaynaynaa dawladda Soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa inuu caqliga shaqeeyo oo wada hadal iyo walaalnimo lala galo reer Jubbaland wixii ayaga ay jecel yihiin wixii laga tabanayo inta lagala hadlo si wanaaga loola hadlo ayaguna ay wixii wada hadal aysan ayagana diidin madaxweyne Axmedna aniga muddo badan soo wada shaqeynay shirar badan wada galnay waligiis meel kasta oo la tago waxaan ku ogaanay asiga wax dhaxdhaxaadiyo in la dhaxdhaxaadiyo aan diidanayn marka waxa kale oo ay xaqiijinaysa taas markii la doortay waxaan ka filaynaa inuu waraaq adag qori doono warqadda uu qoray oo dawladda ugu baaqay uu leeyahay wixii dhacay waa dhaceen hal wada shaqeeyo runtii haddii intaa wax lagu qaadan waayo wax kale noqonay marka aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya oo nabada Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo Soomaaliya iskale qofna maanta ma dhihi karo sidii aniga aan rabay si aan ahayn laguma socon karo Soomaaliya waxay ayada wada tiri oo isla ogolaatay lagu socon karaa taasaana meel lagu gaari karaa marka dawladda Soomaaliyeed dadka hoggaanka u hayaan waan leenahay dadka walaalihiin oo Soomaaliyeed oo mas'uuliyiinta la tashada waxa allaale wixii wax ka qabtiin wax ka dhaha dawladda dhexe marna lama inkirsana laakiin ayadu inay wax inkirto ayadu ay wax diido ninka reerka u weynaa inuu ciyaarta iyo uu bilaabo iyo dhibaatada uu bilaabo arrin nasiib daraawa runtii marka aad iyo aad aan uga xunnahay waxaan rajaynaynaa isku imaatinkeenu mid khayr ah inuu noqdo dawladuna inay inta wax ka fiirsato ayada international community bas waxyaalaha meeshan ka jiro xaqa intay ka aadaan sababta barlamaan waa had doortaa la yiri odayaal ha soo xuleena la yiri wada kasta waa la maray oo saxda ahayd marka in wixii ayaga inta la sameeyo haddana la yiraahdo hebel ma arki karno runtii ma shaqeynayso dhibaato badan lagala kulmaa marka
aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhaweyntaana soo dhaweyseen iyo walaalnimada reer Jubbaland dhammaantoodana waxaan leenahay guuleysta wadadii xaq ahayd waajibkeeda ku taagantihiin insha Allah biidin Ilaahay kariim horumaraan